Waxaan arkaa mararka qaar aniga oo ilmeynayo. Waxaan arkaa aniga oo cidla fadhiyo isla markaana haminayo. Waan istaagaa oo waxaan eegaa daruuraha. Waxaan arkaa in xitaa cirku uusan isku kadar ahayn oo ay dul saaran yihiin daruuro kala duwan. Qaar baa cad, qaarna waxa ay sidaan neecaw roob. Waan aamusaa oo waxaan dhahaa dunida ayaaba sidan u kala duwan. Waxaan ku dhawaaqaa magacaaga. Markaa ayaan ogaadaa in aan keli ahaa oo aysan ila joogin cid. Waxaan dhahaa kala fogaanta ayaa u sabab ah ee iska aamu anigoo nafteeda ku qancinaya. Mararka qaar waxaan sugaa fariin ka socota dhankaada. Waxaan xirxirtaa boorsadayda. Kadib ayaa haddana xasuustaa inay qaaraduhu ay kala fogaayeen. Aad ayaan kuu jeclahay, xitaa nolosha waan kaa jeclahay. Haddii dunidan ay jiri lahayd dad kale oo lala noolaado, waxaan alle ka baryi lahaa in aan adiga kula noolaado. Waan ogahay in dunida aan ku kulmi doono, balse ma ogi in aan hal maalin ka wada tegi doono. Waxaan alle subxaanahu wa tacaala ka baryaa in aan hal maalin ka wada tagno oo uu noogu beddelo nolol tan ka macaan oo aan ku qaadano jannadiisa insha Allah. Aan ku qoray qayb walba oo jirkayga ka mid ah si bulshadu aysan ii weydiinin sababta aan u noolahay. Magacaaga ayaan ku xardhay afafka hore ee guriga aan ku noolahay si aan kugu soo celceliyo qof walbana oo u akhristo. Haddii aan maanta heli karo sharci aan qaaradaha si fudud ugu gudbi karo, habeen madow ayaan dhabtaada ku soo seexan lahaa oo aan riyada kula wadaagi lahaa. Aad ayay taasi u adag tahay oo adduunyada aan ku noolnahay ayaanan aqoon u lahayn qiimaha jacaylka oo waxa ay ku badiyeen xuduudaha aniga iyo adiga inoo dhexeeya. Isku qabo indhaha oo fiiri maalmaha soo socda. Kala fur indhaha oo xabiibi eeg sawirka. Waan hubaa waadna u qalantaa in aan nolol wadaagno. Mararka qaar waxa aan ku dhahaa hal eray oo ah waan ku jeclahay, balse marka aan kuu imaado waxaan ku dhihi doonaa laba eray oo ah waan ku jeclahay iyo waad mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay macaanto, farxad ku waar inta ay nolol jirto. Waa anigoo ah walaalkiina Zakizama. Haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo u sii sheergareynaya. Haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaaladan xiga, channelka subscribe saar. Wixii afkaartiina waxaad inagu soo gudbin karteen qaybta hoose commentiga. Waad mahadsantihiin. Walaalkiina Zakizama. Haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan waxaan idinka codsanaynaa channelkeena Hilaac Studio Production inaad subscribe noo saartaan. wixii kaloo afkaartiina waxaad inoogu soo gudbin kartaan qaybta hoose ee commentiga. Waad mahadsantihiin. Anagoo isku duuban waxaan idiin leenahay maalin wanaagsan dhammaan taageerayaasha ku xiran channelkeena.